Soomaaliya ee maamulka Puntland ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ka dambeeyay sheegtay inay tahay in maamulka Puntland lagula xisaabtamo wixii halka ka dhacay. Wasiirka Amniga Puntland Cabdisamed Galan ayaa BBC-da u sheegay in dibadbaxyadaasi laga soo abaabulay magaalada Muqdisho. Goor dhow ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaan marka hore weydiiyay bal dibadbaxyadaasi ka dhacay iyo waxa ay ku saabsanaayeen degmada Dhaxar. annaga dastuuriyan waxaanu aaminsanahay dadku xaq bay u leeyihiin in ay mudaaharaad oo nabadgelyo ku dhaca inay ku cabiraan shucuurtooda iyo dareenkooda laakiin waxaa la diidan yahay mudaaharaad dana kale iyo qorshe kale leh oo abaabulan oo qoryo la dhex wato oo sur la dhex wato oo la rabo khalkhal in la geliyo amnigii meesha ka jiray arrintaasi baraha bulshada ay ka wada buuxdaa dadkii daawanaya way shahaada wada arkayay nimankii boorarka watay oo halkaa mudaaharaadayay dad qoryo watada dhex galay oo qoryo xabada riday oo dhagax suur sameeyay mudaaharaadayay dad qoryo watada dhex galay oo qoryo xabada riday oo dhagax suur sameeyay markaasay laamihii amniga iyo ciidamadii booliska waxa ay guda galeen in ay dadka dhibaatada wada si aan dadkii shacabka ahaa u dhibaatoonin in la kala eriyo rasaas bay kor u rideen qof bini aadana oo wax gaarayna ma jirto dhimashaan jirin dhaawacdaan jirin hanti burburtaydaan jirin marka laga reebo intii yarayba iyagu dhagaxda iyo ay tuurayeen wixii ay waxgaarsiiyeen oo hanti ah dadku marka maxay ka mudaharaadayeen maxay diidanayeen dadku waxa ay ujeedka ay rabeen waa sunaan hadda aanu kuu sheegin ma wax muuqanayay oo daahirka ahaa mise waxa baarida ku jirta oo qarsoon waxa muuqanaya oo daahirka wuxuu ahaa booradii bay wateen oo ay madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Cabdullaahi Farmaajo ay taageero ugu muujinayaan laakiin waxaanu rabnaa iyadoo baaridu ay dhamaystirmi doonto xogo hordhacan aan helayno xilliga maanta lagu jiro kaambeyn siyaasadeed oo la oran karo madaxweyne iyo baa la kala dooranaya mataagna Soomaaliya waa aragta xaalad ay marayso xaalad adag baa lagu jiraa fiskal ah marka xilli kaambeyn la geli karo ama cid taageero la weydiisan karo maaha taas marka waxay keentay tuhun badan baarida hordhaca aan helaynana waxaa noo soo baxday inay nabaro ECC leh oo xamar laga isticmaalayay ay lacag ka timi dadkii abaabulay mudaaharaadka qayb kamid ah gacantaan ku haynaayo baarida ku socota qaybtood hordhac waxay noo siinayaan in lacagana loo soo diray qolada xukuumadda waqtigeedu uu dhamaaday oo Jamaal wasiir inagu arrinta ma xaqiijin karno laakiin adinka waxa la idinku eedeynayaa in dadkaasi oo dibadbax nabadeed dhigayay aad isku daydeen inaad caburisaan oo aad awood u adeegsateen arrinta maxaa ka jira arrinta waxba kale jiraan waxaana daliil u ah wax walba waa duuban yihiin waxaa laga heli karaa social media laga heli karaa halkaas laga arki karaa markii ay dadku ay dareerayeen oo ay boorarka wateen oo ay hadlayeen ciidamada hadin ciidamada taaban nabadgelyo ku dhexmarayeen magaalada markii niman qoryo wata ay dhex galeen oo xabada soo rideen oo ay dhagax burteen oo ay meeradihii iyo meerihii weyntaa dhexiyeen intaa ka badan annaga mas-uuliyadda dadkan iyo dalkan naga saaran waxaan ku qasbannahay amnigooda iyo salaamadooda inaanu ilaalino kuwa kan mudaaharaadayana khalad kasta hadday doonaan ha ku jiraan iyaga la sugooda salaamadooda iyo nabadgelyadooda inaanu ilaalino ciidamada amar bay qabeen ah inaysan dadkaa waxyeelayn hadday mudaaharaad silmi wataana intay dhamaysanayaan inay dhinac socdaan oo ilaaliyaan waana waxyaabaha ay caanka ku tahay Puntland maalmihii la soo dhaafay waxay dawladda Soomaaliya ku dhaliilaysay in 19 bishii Febraayo dawladdu ay hor istaagtay dibadbaxyo ay dhigayeen mucaaradku marka hadda wixii dawladda aad ku dhaliilayseen ayaad sameeynaysan soo maahan wasiir maya xaasha lillah waa kaas iyo kala dheeri anagu waxaanu ka hadalay waana qodob dastuuri ah far Soomaaliya oo guud ku qoran yahay charterkaas meel gaarka ah xuquuqda muwaadinka waxaa kamid ah inuu cadashadiisa iyo fikirkiisa si xor u cabiri karo isagoo aan la cabirin wixii 19 ka dhacay xamarna cabirin waa ay ka badnaayeen adinku dhaxar maxaad ka samayseen marka wasiir anaga dhaxar waxaanu ka samaynay islaamkiinka xamar jooga oo nabad iyo nolol la baxay oo dhibaatada xamar ka soo taagaysa iyagii laftirkooda dhibaatadii soo maray oo damcay deegaanada amniga ah ee Puntland qayb kamid ah waxay damceen iyo kale inay ka sameeyaan shacab ay abaabuleen dad qoryo wasay lacag u soo direen anagoo danaysan arrintan in eedadaro iyo nabadgelyo xumo la rabo in laga abuuro waxaan ka taxadiray dadka shacabka inaanu dhibaatayno laakiin adiguba sidaa sheegayso rasaasada isticmaasheen soo maahan maya markii ay bilaabeen inay dadka qayb kamid ah xabada ridaan oo ay qoryo la soo bixeen oo ay dhagax soo bilaabeen intaa wixii ka dambeeyay waxaa iman lahaa khasaare naf iyo maal bale waxaanu go'aansanay inaanu marka bahasha halkaa ku joojino dadkii kala tagaanu niri ogaa waa yara dhaga adeegeen waxay keentay marka rasaas kor loo rido dadka lagu dareensiinayo in halkaa lagu joojiyo